munaasabadan maanta lagu qabta magaalada Cadaado ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug xildhibaan Yuusuf Xayle Jimcaale oo ah aasaasaha hay'adda Soheeda iyo dadweyne kale ayaa hay'adda ku shaacisay in waxbarashada dugsiga hoose dhexe iyo sare oo lacag la'aan ay siinayso 100 arday kuwaas oo laga soo qoray qoysas danyar oo ku nool magaalada Cadaado. Gudoomiyaha degmada Cadaado Cabdullaahi Cabdiraxmaan Tootole ayaa tilaabo muhiim ah ku tilmaamay in hay'adda Soheeda ay ballan qaado waxbarashada 100 arday oo laga soo xulay qoysas danyar ah. waan kaga mahadcelinaynaa barnaamijkan quruxda badan maanta looga furayo dowlad goboleedka Galmudug khaasatan degmada Cadaado jamciyadda Soheeda oo ah jamciyad khayriya oo dhinaca waxbarashada inta badan xooga saarta jamciyaddaas oo aan ognahay xilligii la aasaasay iyo xilligan inta ka dhaxaysa inay wax badan ku soo kordhiday dad badan oo danyar ah oo Soomaali ah waxaan leenahay horumar hore ugu sii tilaabsada. Imam Umar Macalin Abshir iyo Axmed Macalin Fiqo oo kamid ahaa xubnihii ka soo qayb galay munaasabadan ayaa sheegay in loo baahan yahay in fiiro gaar ah lagu eego waxbarashada dadka danyarta. Haddii marka Galmudug iyo galabta u soo degta Cadaado waxaan leenahay waa qaybtii nasiibkaan ku lahayn waana suugaynaa maalin maalmaha kamida oo gargaaraha ummadda Soomaaliyeed oo hiliyaha dadka tabarta yar xildhibaan Yuusuf Xayle Jimcaale soo gaari doono maalin maalmaha kamida meeshaan waa maleynaynay marka runtii waxaan leeyahay ka faa'iideysta xildhibaan Yuusuf iyo hadiyada qaaliga ee uu keenay Galmudug hal laga faa'iideysto. waxaan arkaynaa shaqo fiican oo aad u qurxoon oo ku dayasho mudan oo weliba miraheedii bannaanka uga soo baxeen meeshii lagu talagalay oo aan rajaynayno dadka maanta waxbarashada Soheeda ku dhex waxbaranaya inay noqon doonaan hogaamiyaasha mustaqbalka. aad baan ugu mahadsantihiin waxaan intaas ku daraya baaq ayaan ku daraya 1119 qofkii gacanta ku hayay oo 100 kale lagu daray 1219 iyo kuwa kale soo socda inay sii socoto miyaa rabnaa mise inaan joojinno oo ardaydaasi ay kala tagaan baan rabnaa. jagada Yuusuf Xayle iyo xildhibaannimadiisuna waa inay sii socotaa. xildhibaan Yuusuf Xayle Jimcaale oo ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya kana mid ah aasaasayaasha hay'addan waxbarashada bilaashka sida 100 arday ayaa sheegay inay sii wadi doonaan isla markaana ay ballaarin doonaan mashaariicda wax lagu barayo dadka danyarta ah. furno goboleedka Galmudug gaar ahaan degmada Cadaado jamciyadda Soheeda oo ku deeqday 100 arday oo danyar iyo aqoon ah inay ku bari doonto deegaankan. jamciyaddan waxaa asaaskeeda iyo fikirkeeda iska lahaa xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye iyo xildhibaan Yuusuf Xayle Jimcaale. muqdisho ayay ka fureen xarunteeda koowaad xarunteeda labaadna waxaan ka furnay Cadaado ama deegaanka Galmudug. aadaan u faraxsanaa maanta inaan xafladda ka soo qayb galno inaan furitaanka joogno inaan furno oo ku faraxsannahay aad iyo aad mahadsantihiin. Maxamed Maxamuud Owaadan TV-ga caalamiga Universal Cadaado.